السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو هريس waxaa mahadskar Allah subhanahu wa ta'ala waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo halbowlayaasha dhiigga siiya adimanka kore ee jirkeena sidaad aragtaan muuqaalka wadnaha wuxuu u samaysan yahay sida tan xididada marka saddex loo qaybiyo guud ahaan arteries veins iyo capillaries qaybtan hoose waxa loo yaqaan inferior vena cava kuwan waxa loo yaqaan superior vena cava labadaba waxay dhiig ka soo celiyaan qaybaha jirka oo dhan oo waxay ku soo celiyaan wadnaha ayay ku soo celiyaan oo labadaba waxay ku soo shubaan qaybta right atrium kadibna wuxuu u sii gudbinayaa right ventricle wuxuu geynayaa samabadi kadib dhiig wuxuu ku soo darayaa oxygen dhiig oxygenated ayaa waxa dib loogu soo celinayaa wadnaheeda marka maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno marka sida wadnaha uu dhiig u siiyo adimanka kore ee jirkeena wadnaha waxaa ka baxa halbowle aad u weyn oo loo yaqaano aorta halbowlahan waxaa loo yaqaanaa aorta ayaa loo yaqaanaa aortaha wuxuu dhiig siiyaa dhammaan qaybaha kala duwan ee jirka oo dhan ayuu dhiig siiyaa markii aortaha markuu kor u baxayo waxaa loo yaqaanaa ascending aorta markuu soo deganin waxaa loo yaqaanaa descending aorta ayaa loo yaqaana oo markuu soo degto mar walba meesha uu marayo magaceeda ayuu qaadanaya tusaale ahaan oo kale markuu marayo qaybta jastiga oo xabadka oo loo yaqaano thoraciska wuxuu qaadanayaa magaca thoraciska waxaa leeyahay thoracic aorta ayaa leeyahay waxaa leeyahay thoracic aorta ayaa leeyahay markii uu marayo qaybta abdominkan waxaa leeyahay abdominal aorta ayaa leeyahay waxaa leeyahay abdominal aorta ayaa leeyahay oo soo marku meel walba position magaceeda ayuu qaadanaya haddaan markii aan bilaawno wadnaha markii waxaa ka baxaan dhahnay halbowlaha ugu weyn ee wadnaha ka baxa oo jirka gebi ahaan dhiigisiya waxaa loo yaqaana aortaha waxaa ka baxa saddex baranji oo aada u waaweyn baranji ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa brachiocephalic trunk waxaa loo yaqaanaa brachiocephalic trunk ayaa loo yaqaanaa midka labaad waxaa loo yaqaanaa baranjiga labaad waxaa loo yaqaanaa lefty common carotid artery midka saddexaadna waxaa loo yaqaanaa lefty subclavian artery waxaan dhahnay saddex baranji ugu horeysa ka bixis waxaa loo yaqaanaa brachiocephalic trunk lefty common carotid artery iyo lefty subclavian artery brachiocephalic trunk wuxuu nasii doonaa asna sidoo kale laba baranji ayaa ka bixi doonta brachiocephalic trunk waxaa ka bixi doona laba baranji labada baranji waxay kala yihiin baranjiga ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa right subclavian artery iyo waxaa kaloo loo kala yaqaanaa baranji kalena waxaa loo yaqaanaa asna sidoo kale right common carotid artery so waxaan dhahnay brachiocephalic trunk waxaa ka bixi doona laba branch right subclavian artery iyo right common carotid artery right common carotid artery isna sidoo kale waxaa ka bixi doona laba artery ayuuna sii doonaa laba artery waxay kala yihiin external carotid artery iyo waxay kala yihiin internal carotid artery labadaas ayaa asna sidoo kale waxay ka bixi doonaan right common carotid artery wuxuuna sii doonaa external carotid artery iyo internal carotid artery waxaa ku soo haray lefty common carotid artery asna sidoo kale wuxuuna sii doonaa laba qayb laba artery ayaa ka bixi doona labadaas artery waxay kala yihiin external carotid artery iyo internal carotid artery external carotid artery wuxuu quudin doonaa wejiga halka internalkan wuxuu quudiyaa maskaxda iyo indhaha waxaan dhahnay internal carotid artery wuxuu quudiyaa maskaxda iyo indhaha halka externalkan wuxuu quudiyaa qaybaha kasoo haray sida wejiga oo kale waxaa ku xiga baranji kale ee aortaha tooska ugu baxa waxaa loo yaqaanaa lefty subclavian artery lefty subclavian artery wuxuu quudin doonaa adimanka kore ee jirka waana midka hadda aan ka hadlayno so left subclavian artery-ga baranjiga ugu horeeya ee ka bixi doona waxaa loo yaqaanaa baranjiga ugu horeeya ka baxay waxaa loo yaqaanaa ama faraca ugu horeeya artery ahaan ee ka baxay waxaa loo yaqaanaa vertebral artery waxaa loo yaqaanaa vertebral artery ayaa loo yaqaanaa vertebral artery waxa waaye wuxuu quudin doonaa spinal cordka brain stemka iyo cerebellumka ayuu dhiig siin doonaa hadduu aleedmo ama uu quudiyaa caadiyan waxaa kaloo ka baxaya farac labaad ee ka baxay waxaa loo yaqaanaa internal thoracic artery farac labaad ee ka baxay waxaa loo yaqaanaa internal thoracic artery ayaa loo yaqaanaa waxaa kaloo ka bixi doona farac kale so waxaan dhahnay waxaa ka baxayo lefty subclavian artery farac ugu hore waxaan dhahnay vertebral artery mid kalabaad waxaan dhahnay internal
thoracic artery. waxaa kaloo ka baxaya artery kale oo loo yaqaano asigana sidoo kale oo badanaaba dhiig siin doona oo loo yaqaano thyrocervical artery. waxaa loo yaqaana thyrocervical artery. thyrocervical artery wuxuu dhiig siiyaa ama uu quudiyaa caadiyanba thyroidka, parathyroid glandiga, wuxuu kaloo quudiyaa pharynxiska, larynxiska, waxyaabahaasoo dhan ayuu dhiig siiyaa. waxaa loo yaqaanaa thyrocervical artery. thyroid glandiga, parathyroid glandiga, pharynxiska, larynxiska, qaybahaasoo dhan ayuu dhiig siiyaa. waxaa loo yaqaana thyrocervical artery ayaa loo yaqaana. waxaa kaloo ku xiga oo isna sidoo kale oo ka farcami doona oo faraca afraad ka baxayo left subclavian artery. waxaa loo yaqaanaa waa midkan sidaan muuqaal ahaan u samaysan, arterigan sidaan muuqaal ahaan u samaysan. waxaa loo yaqaanaa costocervical artery. waxaa loo yaqaanaa costocervical artery ayaa loo yaqaanaa. waxaa loo yaqaanaa costocervical artery ayaa loo yaqaanaa. farac laada ka baxay waxaa loo yaqaanaa costocervical artery. costocervical artery wuxuu dhiig siin doonaa hadduu alla ama uu quudiyaa adimanka kore ee jirkeena. wuxuu kaloo dhiig siiyaa madaxa iyo qoorta intaba ayuu dhiig siiyaa. waana baranjiga afraad ama faraca afraad ee ka baxayo left subclavian artery. marka la marayo ku-aadka feerta koowaad at the level of the first strip, marka la marayo ku-aadka feerta koowaad marka la marayo ama la taagan yahay meeshaas, subclavian artery wuxuu isku bedeli doonaa weliba left subclavian artery. left subclavian artery left subclavian artery wuxuu isku bedelayaa into axillary artery. changes into wuxuu isku bedelayaa axillary artery ayuu isku bedelayaa. wuxuu isku bedelayaa into axillary artery ayuu isku bedelayaa. waxaan dhan wuxuu isku bedelayaa into axillary artery ayuu isku bedelayaa. so marka la marayo ku-aadka feerta koowaad marka la marayo subclavian artery wuxuu isku bedelayaa axillary artery ayuu isku bedelayaa. kadib axillary artery wuxuuna sii doonaa branchio. branchiga ugu horeeya ee ka baxaya axillary artery waxaa loo yaqaanaa thoracoacromial artery. waxaa loo yaqaanaa thoracoacromial artery ayaa loo yaqaanaa. waxaa loo yaqaanaa thoracoacromial artery. thoracoacromial artery wuxuu dhiig siiyaa pectoralis majorka iyo minorka oo murqahan justiga ku yaala loo yaqaano pectoralis major iyo minorka ayuu dhiig siiyaa. waxaa kaloo jira branchi kale oo ka baxaya qaybta hoose oo loo yaqaano lateral thoracic artery. waxaa loo yaqaanaa lateral thoracic artery. branchigan asna sidoo kale lateral thoracic arteryga asna sidoo kale wuxuu dhiig siiyaa pectoralis majorka, pectoralis minorka iyo axillary lymph nodeska. asna sidoo kale intaasi ayuu dhiig siiyaa. waxaa kaloo jira branchi kale oo ka baxay oo loo yaqaano oo ku xiga thoracoacromialka hoostiis waxaa jira branchi kale ama farac kale oo artery oo ka baxayo. waxaa loo yaqaana subscapular artery loo yaqaana. waxaa loo yaqaana subscapular artery ayaa loo yaqaana. subscapular artery asiga wuxuu dhiig siiyaa ama uu quudiyaa murqaha garabka. wuxuu kaloo dhiig siiyaa adimanka kore oo hadda aan ka hadlayno. wuxuu kaloo quudiyaa uu dhiig siiyaa murqaha sida deltoid muscle-ka, latissimus dorsi-ga, long head of the triceps brachii, supra and infra spinatus iyo serratus anterior muscle. intaasi ayuu dhiig siiyaa subscapular artery. kadib subscapular artery hoostiisa waxaa kaloo jira farac kale oo ka baxayo. laba artery oo isku xiran ayaa jirta oo ka bixaysa. waxaa loo yaqaanaa anterior and posterior humeral circumflex artery ayaa loo yaqaanaa. waxaa jira laba artery oo ka bixaysa. waxaa loo yaqaanaa anterior humeral circumflex artery iyo posterior humeral circumflex artery. posterior humeral circumflex artery. labadaas artery ayaa iyagana sidoo kale waxay ka baxahayn subscapular hoostiisa.
anterior humerus circumference artery wuxuu dhiig siiyaa glenoid humeral jointiga oo qaybta isgoyska oo glenoidka iyo humeruska lafta humeruska iyo glenoid cavity-ga jointigooda. wuxuu kaloo uu dhiig siiyaa tres majorka iyo tres minor muscleska iyo deltoidka. waxaana tres minor, tres major, deltoid muscle iyo glenoid head of the humeruska ayuu dhiig siiyaa anteriorka, halka posteriorka asna sidoo kale intaasi in lamida ayuu asna siiyaa. so marka meesha la marayo weliba ku aadka muruqa loo yaqaano tres major qaybtiisa hoose marka la marayo, at the level of tres major marka la marayo oo la jooga, axillary artery wuxuu isku bedelayaa changes into wuxuu isku bedelayaa brachial artery ayuu isku bedelayaa into brachial artery ayuu isku bedelayaa. kadib brachial artery wuu socon doonaa kadib waxaana brachial artery wuu socon doonaa brachial artery wuu sii socon doonaa ilaa ay qaybta xustulka oo maro. kadib axillary artery wuu sii socon doonaa kadib wuxuuna sii doonaa laba branch oo kale ah axillary artery wuxuuna sii doonaa laba branch oo kale ah radial artery wuxuuna sii doonaa ulnar artery. radial artery wuxuuna sii doonaa ulnar artery ayuuna siin doonaa oo labadaas artery ayaa kasii farcami doonta. radial artery ulnar artery iyagana sidoo kale way isku imaan doonaan oo waxayna sii doonaan waxa loo yaqaano superficial arch. waxayna sii doonaan waxa loo yaqaano superficial arch iyagana sidoo kale waxaa ka bixi doona faracyo oo toos u gali doona faraha oo loo yaqaano digital arteries. digital means waxa waa fingerska waay oo waxay toos u quudin doonaan qaybaha faraha, iyagana sidoo kale ay toos u quudin doonaan. so xididada dhiigga siiya adimanka kore guud ahaan waa intaas. waxaa jira marka magac loo soo gaabiyo oo aad ku aqoonsan kartid xididada ugu horeeya ee ka baxaya subclavianka, waxaa loo yaqaana vitamin C. waxaan usoo gaabiyay vitamin C. cashirkeena maanta intaasaan kusoo koobayna haddoo alla idmo. haddii muuqaalka in badan aad ka heshay la wadaag asxaabtaada oo share garay. intaan muuqaalkan mid lamid aan dib kaga kulmayno waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi